السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. eedeymaha la xidhiidha nacaybka diinta islaamka ee dalalka Yurub ma aha wax cusub laga soo bilaabo xidhashada xijaabka haweenka muslimiinta ah iyo gubidda kitaabka Qur'aanka Kariimka ah waa wax marar badan ka dhacay dalal Yurub ku yaala. Tani waxa ka sii horreeyay sidoo kale qorshayaashii reer galbeedka gaar ahaan reer Yurub ay doonayeen inay ku gumaystaan dunida ee ay dalal badan oo islaam ah agta hoosteeda ku galiyeen in badanna malaayiin iyo malaayiin muslimiin ah oo dalal kala duwan ah ku dileen. Faransiiska ilaa sanadkii 1951 waxa ku yaalay masaajid kali ah oo ah masaajidka Paris, laakiin maanta waxa ku yaala in ka badan 2260 masaajid. waxa sidoo kale ku yaal macadka dunida Carabta. jaamacadaha dalkaas oo dhan waxa lagu dhigaa fikirka islaamka iyo suugaanta Carbeed. 20 sano ee la soo dhaafayna Faransiisku wuxuu magangeliyay 1.5 milyan oo muhaajiriin ah, kuwaas oo 87% ka mid ah ay ka tageen dalalka muslimiinta ah. iyadoo ay sidaas jirta haddana Faransiiska maalinba maalinta ka dambaysa waxa ku sii kordhaya nacaybka kooxaha midigta fog ay u qabaan dunida muslimka. madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron waxa uu khudbad u jeediyay shacabkiisa Faransiiska muddo hore uu ku yiri sidan: islaamku waa diin maanta dhibaato ku haysa adduunka oo dhan. isla khudbadaas wuxuu daaha kaga rogay barnaamij siyaasadeed oo lagu xoojinayo laziita waxa loo yaqaan waa cilmaaniyadda oo si adag u xakamaysa diinta bulshada dhexdeeda, gaar ahaan iyaga oo bartilmaameedsanaya diinta islaamka. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa si cad u cadaystay inuu islaamka ka hortegayo, isagoo khudbadiisa u jeediyay 4 Oktoobar sanadkii 2022 uu shaaca kaga qaaday qorshe uu ku doonayo inuu ku meel mariyo sharci adag oo xakamaha ugu geejinayo muslimiinta ku nool dalkiisa, taasi oo dhalisay cadawin oo caalami ah oo muslimiinta oo dhan ah. hadalladiisaasi nacaybka reebay waxa kamid ahaa muslimiinta gooni goosadka ah waanu xakameynayna si uu difaaco mabaadi'diisa cilmaaniga ah. Emmanuel Macron iyo sidoo kale garabada midig ee xagjirka ahi waxa ay dadaal dheer oo geed gaabanba ay u fuuleen ay ku wajaheen dunida muslimka. arrin haddaba la yaab noqotay waxa ay noqotay kooxaha midigta fog ee Faransiisku waxay weli bartilmaameedsanayaan haddaba oo sii wadaan in ay beegsadaan iyaga oo dhaleecaynaya gooldhaliyaha xulka qaranka Faransiiska iyo kooxda kubadda cagta waddanka Saudi Arabia ee Al-Ittihad Jeddah Karim Benzema, iyaga oo markan ku haysta waxa uu daacad u yahay diinta islaamka ama dhaqanka Carabta. gaar ahaan waxay ku eedeynayaan sababta uu u lubistay dharka dhaqan ahaan Saudi Arabia laga isticmaalo iyo sidoo kale in uu qaatay calanka tawxiidka leh ee dalkaasi Saudi Arabia. Karim Benzema ayaa bishii May sanadkii 2022 ka gudbiyay dacwad ka dhan ah siyaasiga midigta fog ee Faransiiska Damien Rio oo xubin ka ah xisbiga Eric Zemmour, kadib markii uu ninkaasi ku eedeeyay Karim Benzema argagixiso. baraha bulshada ayuu ku baahiyay hadallo nacayb ah oo uu xidigan ku tilmaamay in uu yahay mid argagixiso ah. waxa haddaba mar kale banaanka yimid kooxahan midigta fog ee dabagalka ku haya Karim Benzema oo imika noqday kuwa aan qarsan nacaybkooda xad-dhaafka ah ee ay islaamka u qabaan. waa kuma haddaba siyaasiga Faransiiska ah ee garabka midig ee weeraray Benzema xaaladihii ugu dambeeyay ee faylkan? Jordan Bardella oo ah kaaliyaha koowaad ee Marine Le Pen oo ah madaxa xisbiga garabka midig ee National Front ayaa raacay wadadii Rio, wuxuuna ku eedeeyay weeraryahanka Ittihad Jeddah in uu yahay saaxiibka fikirka islaamka. Bardella ayaa ku yiri hadal uu ku baahiyay shabakada Faransiiska ee BFM TV: waa in aan kala saarno shaqada shakhsiga iyo fikradiisa. Benzema wuxuu ahaa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican kubadda cagta Faransiiska, laakiin waxa uu taageeraa islaamiyiinta xagjirka ah. sidaas ayuu yiri ninkani. cunsuriyiintan ayaa hanqal kala soo kacay markii uu haddaba Karim Benzema toddobaadkan uu sawir ku daabacay akoonnadiisa rasmiga ah ee Instagram, Facebook iyo Twitter, kaas oo uu ka soo muuqday isaga oo ku labisan dharka Saudi Arabia, agtiisana uu yaallo calanka boqortooyada Saudi Arabia ee midabkiisu yahay cagaarka ayna ku xardhan tahay kelmadda laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah. Saudi Arabia waxa ay u dabaaldegaysay munaasabadda xuska maalinta qaranka dalkaasi Sacuudiga, taasi oo keentay in ciyaartoyga waaweyn ee ka safta horyaalkaasi ay ku soo labistaan dharka dhaqan ahaan Sacuudiga laga isticmaalo, iyaga oo sidoo kale seefo ku dabaaldegay. sawirada iyo postiyada fariimaha ah ee uu Karim Benzema ku faafiyay akoonnadiisa Instagram, Twitter oo imika X loo yaqaano iyo Facebook ayay cajabiyeen ku dhawaad 4 milyan oo taageere, halka daqiiqada kadib ay malaayiin kale muujiyeen sida ay ula dhaceen sawiradaasi oo ay faalooyin ka bixiyeen. qoraalka uu sawiradan raaciyay Benzema
ayaa u dhignaa sidan. bal eega nolosha aan ku noolnahay. tani waa maalinta qarannimo ee Sacuudiga, waa maalin farxad leh. ninkan cunsuriga ah ee haddaba lagu magacaabo Bardella waxa uu intaa ku daray isaga oo aan raalli ka ahayn waxa uu sameeyey Benzema sidan. ugu yaraan waxa uu ku taagan yahay boosaskiisa, waxa uu doonayaa hab nololeed islaami ah. sidaas darteed wuxuu tagay Sacuudiga, wuxuu xidhan yahay dharka dhaqanka ee Sacuudiga. Sacuudiguna waa dal islaam ah inta aan ogahay. waxaan ogahay in uu yahay Sacuudigu waddan gacmaha ka jara kuwa waxada. qoraalkaasi ayuu ninkaasi cunsuriga ahi barta uu ku leeyahay baraha bulshada. waxaa xusid mudan in Benzema uu ka mid yahay ciyaartoyda xirfadleyda ah ee ka tirsan horyaalka Sacuudiga ee Rasheen loo yaqaano. xidigahaasi oo u dabaaldegay maalinta qaran ee boqortooyada. sawirradooda iyo muuqaaladoodana waxay ka soo muuqdeen baraha bulshada oo ay ku jiraan Cristiano Ronaldo oo reer Portugiis ah, Sadio Mane oo u dhashay Senegal, ciyaartoyga reer Croatia isaguna lagu magacaabo Marcelo Brozovic, kuwaasi oo dhammaantood u safta Al Nassr. halka sidoo kale ay dabaaldegan ka soo muuqdeen ciyaartoy kale oo ay ka mid yihiin kooxda Al Ahli sida Riyad Mahrez oo u dhashay Algeria iyo Frank Kessié iyo Najimi. sidoo kale xidigaha reer Hilal Neymar da Silva, Malcolm iyo Oliveira Mikael Delgado iyo Yasin Bono, dhammaantood xidigahaasi waxay u dabaaldegeen xuska maalinta qarannimada Sacuudiga iyaga oo la dabaaldegay dalkaasi Saudi Arabia. tani waxay ka cadhaysiisay cunsuriyiinta masiixiyiinta ah ee mar walba nacaybka badan u qaba muslimiinta. Damien Rio oo ah xagjirka midigta fog ee Faransiiska ah waxa uu muddo hore soo dhigay 2 tweet oo uu ku leeyahay akoonkiisa rasmiga ah ee Twitterka oo imika X loo yaqaano. waana dhacdo soo taxnayd ilaa 2020 kaas oo uu si cad ugu eedeeyay Karim Benzema nin argagixiso ah. Twitterkiisii ugu horreeyay ninkani waxa uu Karim Benzema ku weeraray bishii Oktoobar 24 sanadkii 2020. Rio ayaa daabacay sawirka Benzema oo uu kula jiro nin gadh leh, wuxuuna ka faallooday oo uu faalle kaga bixiyey sawirkaasi qoraal u dhignaa sidan. waxaan la yaabay kulanka Benzema uu la yeeshay Imaam Nuruddin Maamuun oo lagu eedeeyey in uu galay falal argagixiso iyo sidoo kale in magaciisu uu la xidhiidho maalgelinta masaajidada. Brown waa magaalada uu ku dhashay Karim Benzema. tweetkaasi haddaba muddo bil kadib ah, gaar ahaan bishii November 22 2022 Damien Rio ayaa mar kale soo laabtay. waxaanu ku soo laabtay weerar uu mar kale ku qaaday Karim Benzema isagoo siyaasiga Faransiiska ahi uu daabacay sawirka ciyaaryahanka asal ahaan ka soo jeeda Algeria oo kor u qaadaya fariinta caalamiga ah ee farta, isaga oo sawirkaasi lagu garab dhajiyay sawirro kooxo islaamiyiin ah oo hubaysan, kuwaasi oo uu ku xidhiidhiyey in uu xidhiidh la leeyahay balse aanay sheegin ama aanu faahfaahin ka bixin sida uu xidhiidh ula leeyahay ciyaartoygani kooxahaas mintidiinta ah. Rio ayaa ka faallooday sawirradaas uu Karim Benzema farta sidaa leeyahay, taasi oo ah astaan uu mar walba ku dabaaldegi jiray. ninkan Rio waxa uu yidhi waxaan u malaynayaa in Benzema uu doonayo inuu noo soo diro fariin. labadan tweet ayaa weli laga heli karaa akoonka siyaasiga Faransiiska ah ee xagjirka ah, taasi oo waqtigaa dhalisay in Benzema ka cadhoodo falalkan lagu cunsuriyeeyey isaga oo ku hanjabay waqtigaas in uu maxkamad la tigsan doono kooxahan bartilmaameedka ka dhigtay. isku soo wada duuba saaxiibayaal, waddanka Faransiiska waxaa laga horinayaa colaad culus oo lagu ekaysiinayo cid kasta oo lagu tuhmayo raadad islaami ah. waana ta keentay Faransiisku inuu maanta noqdo tuka baalcad oo ay dad badan oo muslimiin ah aad uga cadhaysan yihiin habka uu u dhaqmayo. tan iyo mawduucan mid la mid ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.